السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام دمان أخيار تشربت له صاحبة قالية غير دبي بريد ذا سيقول سيجار سالي هاي ملا في عين هاي ملا نبض قبا إلهي إذن كيسوا إذي رجينا ملك استعدون كجوكتان إيسو دوهذا نوسو دوهذا وخيري فرحة لسو دوهذا إسكسو نقد كلو ناكسن ومامواني إيا مركلة وبرنامج كي دو جنتا إيا ديرقلين غير لأن الله إيسو ديبو آمين يا ربي ملك استعدون كجوكتان وصاحب إيقالتهين سو دوهذا ويلكم هاي قيبتي سؤالها نقلينا إن شاء الله جوابتنا جواب غير لأو تفهمي كرتان الله قدق آمين قبلها دذالايو دعيستا إلهي إنو دذالكين إذين كقدقو كي إذين موقضو دذالا وقاراه هتر سومالي سو دوهذا سهورتين كاركيسينبو وقبلها أي دأذا حيصو dad waxaa jira ay da'da u heelinayso iyo dad waxaa jira ay da'da hayso ama gabdho ay da'da hayso iyo gabdho wali waqtiga u heelinayo soo su'aalahan insha Allah ku nasta soo dhawaada welcome haye habriyare menopause waa ay haya da'da uu ku yimaadana igama dheero inkastoo wali jajab ii haray isbedelo badan aan dareemin waa saa sheegtay isku fiirsadaa dhahdeen markaan isku fiirsaday wax badan ayaa soo baxay oy ka mid tahay cilladaha soo boodo sida daalka xanaaqa kuleylka dhididka hurka nerfiska waxyaabo badan ay ugu soo boodo maamoy marka weli xag rabbi lagama qoostay rajana waa leeyahay ilaahay baa bixiye in aan tarmo da'da aan jirana waa da'dii isku fiirso waa saa sheegtay baaristii waa ka baqaa maxaa igula tali lahayd okay da'da gabdhaha ay inta badan afka dhuudhuubaan ee dhaqaatiirta ka yara leexleexdaan waa 40 sano gabadhu markay jirtane ilaahay idankiisa nabad Allah nagu gaarsiiyay 15 sano nadiif iyo ka badan oo harsan lafihii la dhaqaaleeyaa raagay tir Soomaali gabar 20 sano 25 sano ee u heelinayso iyo gabaray 10 sano iyo jajab ama 10 sano ee u heelinayso isku si uma jaan qaado marka meesha waxa ku jiro arrinka loo yaqaan xilasho haday gabar aan da u heelinaynin isku xilanaynin okay inaan isku xilanimis isla galgacalsan wax allaala wixii fiican inaan xal raadinin waqtigu waa isguraya sanadka hadii ilaahay nadeysto waa dhashaa waa dhamaada marka 10 sano gooray ku dhaaftay ma taqaanid si hadii loo fiiriyo waa 10 sano hadii kadib waxa u maleynaa in waqtiga ku heelina laakiin 10 sano afkay 10 ka tahay sidoo gudaheena noqonaa marka gudaheena wuu sii howlgaba wuu sii qaraaba wuu sii daxaliisana wuu sii dhamaana marka adna 10 sano 15 sano ay harsana afka ka leedahay yes waxay roontaa 10 sano adoo u dadaalayo inuuna waqti harin camal kurba la'aan waayo qalbi naxnaxa iyo walwalka iyo waswaaska iyo waxyaabahaas waxba kuguma soo kordhiyaan maxaa la iska rabaa marka adoo faraxsan ilaahay talada saartay nafaqada iskula xilanayo wax walba isku roonta la sheega noqday inaad daba orada dantaada markaas waa qaboobe waana qoye waana soo tabar celinay insha Allah marka saasan kugu la talinahay dhakhtarkana horaa waxa loo yiri god iyo nin loo wado lama kala qari karo gabar iyo baaristeedana inay kala qarsoomaan ma aha ma amarka ilaahay mahsanaatay tala helin waana helin fadhiga ka kacay guubaaba iyo waxba helin oo hayacadaha ka ahaato markaas waqtiga goorolmay gabar ma ogo okay amarka ilaahay waqtigu ka siibtay laakiin gabadhu hadii hurdada ka kacdo waqtigu wali u heelinayo haddana aynan danteeda daba ordin hadda adigu bay ku dhiftaa of course ninkii seexda siciis dib dhalay tir Soomaali ha iska seexanin marka ilaahayo mar walba ducee xataa hadaa saa wax u rabto u weyday ducee waayo waxaas ilaahay ka hayay wixii la maqan ilaahay baa naga og hadaa heshana ilaahay ugu xamdi ilaahay ugu shukri soo taas waa taasa soo maxaan kugu la tali lahaa talawaati ilaahay dhakhtarka marka la xiriireydana isku day dhakhtarka warayso
haddii dhaktarad gabara aad la kulmaysa way fiican tahay haddii dhakhtarka warka iyo jilci aad tiraadid weliga haddaad isbaarin oo kale fulixantiisa ma moogo waa inaad tiraahdaa dhakhtarow iyo jilci warka meeshii lagaa rabay meesha aad tahay haddii meeshii lagaa rabay aadan joogin waxa kaa nusqaamiyey dareen waa waayaha waa cunada waa xanaaqa waa dhafarka waa kurbada iyo waa hayaacdada inuu hayaacdo waxaan rabna marsanayno waxaan rabna cunayno waxaan kasoo gaarna samaynayno dee hayaacda ay naga tahay iyo da-da runta ah haddaadan ku shaqaysan waxaa jirta gabdho 40kii dhaafay 30 jajab dhismado gabadhu markay da-deeda qirato daryeelkeeda daacad inay u noqoto waa khasab waayo qofka weyn ilaahay baa weyn oo waaxide dantiisa kaa og nin weyn wadkiisa waa ogyahay tira Soomaali wadkaagi caadiga ma aha taa ilaahay bay u taalaa miis isdardarka jirkaaga adaa og waxyaabaha ku damqaaya adaa og jirkaaga xataa markaa qubaysanaysa iyo markaad kareemsanaysa ama saliid iyo ama dufan marsanayso jirkaaga inuu soo daalo waa dareemay wax qabadkiisa inuu gabaa waa dareemay markaa labisato wajigaaga le gabar yar u egyahay le maaha sheekada waa kaa tabimaan kartaa marka waa inaa isweydiisaa midda kale waa inaa wax ka tanasushaa haddaadan tanasulin oo waxyaabaha dhibaatada keena aadan ka tanasulin sida cunada xun sida qaylada sida dhafarka sida calool istaaga sida xanaaqa iyo kurbada iyo walwalka iyo degdegta iyo waxyaabaha haddaadan ka tanasulin waxay salfanayaan dhalaalka fertilityga waxqabadka dhalinyaranimada marka noloshaas waxay rabtaa hayaacda qababaxlayn maxaase u roon waraab hadal macaan waraab nafaqo waraab hurdo waraab farxad waraab ilaahay idinkiisa insha Allah duca waraab adiga wax kuu roon oo dhan waraab markaas waa marka la leeyahay lafihii la dhaqaaleeyaa raago dhakhtarka qaybtiisa loo qoseeyaa dhiigaga laga qaado iskaan fertilitygaaga meeshay marayso xaaladaada okay hormoonaadkaaga xaaladooda hormoonaadka qaar hadday kacsan yihiin hadda afkoo laga sheegaa kusoo degi maayaan waa inaa action raadida waa inaa nafaqo raadida waa inaa wax kaa sifeeya daxasha raadida daxalaa jirkeena ku jirto shaaha cabnay naga raacday cunaan cunay naga raacday dhafaray naga raacday calool istaagay naga raacday wax kastoo samee sidii kaa raaci kartaa barafuuna isku shubtay daxal kaa raaci kartaa daxashu meel walbay taagan tahay dawada ilkaha lagu cadaystay kaa raaci kartaa haddana da' kastane waxaa samaynaysaa jirka wuxuu samaynaa one out wuu sii gabooba wuu sii daxalaysana wuu sii gabooba marka celcelin markay noqoto information waa kuu muhiim sidoo kale kalsooni iyo farxad waa kuu muhiim ilaahood barido ilaahood talada saarataa waa kuu muhiim naftaadoo nafaqaysaa na waa kuu muhiim saa u noqotid ilaahay idankiisa xariir laakiin dhakada loogama soo dhici kara xariir iyo waa rabay ani ma dhihin Soomaaliya dhahday waa rabay maxay tiri Soomaali roob aa lagu waayay soo dhawaada soo dhakhtar haddaa u tagtaan weydiiya su'aalo badan waayo markaa soo weynaatid wax badana suurta gelina inuu hormoonka daaqada ka baxo sida daxasha beerka fatty liver infectionka kaliyaha ay taqaaniina malayna iyo kaadi haynta raximka iyo howlihiisa caloosha iyo daxasheeda ama asirigeeda jirka iyo daalkiisa adiga oo soo yara jirdaalay ama soo yara gaboobay ma ku imaanayo easy wuxuu ku imaanaa by the time goes back timeka markuu socdo oo dhaqaaqo gadaal maro oo adigana ku sii salfado hadda gabar 25 jira iyo gabar 45 jir isku ooga maaha meesha gabar 45 jir ee qof weyn u soo ekaatay 25 jirta jirkeeda dhalaalayo isku fiirso okay gabadhan waa 25 jir gabadhana waa 45 jir waxa u dhaxeeyo 20 sano oo farq 20kaas sano wuu ku soo guray maqaabina dhafartay maxaa xanaaqday maxaa xanuuno iska jiraan hargabyo iska jiraan difaaca jirka maalin ilaahay keeno waxba duqeynay anagaan dareemeynin marmaraan dareena la goosa leega haya alla dhabarka ay xanuuna la madaxa ay xanuuna la hargaba ay marmaraan dareemeyna calool xanuun iyo heblo iyo xoqada iyo kana igu kacay kana ka dhacay waxa soo dhan waa wuxuu xamili waayo oo adiga ku tusay intuu jirka xamilayo oo na tusaynin ka badan
allah noo kaalmeeya marka soo dhawaada welcome gabdhaha ay da'da haysa maxaan kula tali lahaa tala waa tii ilaahay waxaa idinkula tali lahaa ilaahay idankiisa ilaahay talada saarta isna baarasa waxay ogaataan waayo informationku waa iftiin okay aqoon waa iftiin haddaadan waxba ogeyn dahayacday kaa tahay ilaahay baa wax ogay inaa wax ogaataan qalbigaa kalsooni ku helo niyaddaa ku degto isluri maysid haddee howla kuu socotane waaba farxad kuu socotaba marka cuna caba caafimaadku ceesha waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo daryeelada sifeeyaha ahna weligaaba soo dhaweyso daryeelka sifeeye ah weligaa soo dhaweyso waayo wixii sifeeye ah markaa cunto cabto caafimaadka guudna wuu isi sifeeyaa caafimaadka gaar ee fertilitigana wuu isi sifeeyaa waayo waa daryeelada loo yaqaano heeliska okay the in your favor aday kuu hiilinaan saad uga soo kabato wax allaale wixii cilad jiro ilaahay caafimaad ha keenay aamiin waa inoo lecture-ka kale hadduu ilaahay ka raali noqdo soo dhawaada welcome salaamu calaykum